maalinta 8 Zakhayos. intuu sayid ciise ku sii jeeday Yerusalem dad aad u badan ayaa meel kasta kula kulmay waxay weydiinayeen inuu tuso jidka lagu badbaado iyo inuu wax dheeraad ah ka baro boqortooyada Ilaah runtii ninkan waa nebi sayidkaygiiow ibadbaadi rabbiyow nabadbaadi rabbiyow jidka xaqa ana tus dadka rabbinimo ayay u ogolaadeen magaalada Yeriko waxaa jiray nin cashuur qaade ka ahaa oo lagu magacaabo Sakayos wuxuu aad u rabay inuu arko Ciise wuxuu koray geed si uu arko Sakayasow soo deg maanta marti ayaan ku ahay gurigayga yaa rabaa inaa gurigiisu martiyo yaa Sakayos siduu ku bartay sayid ciise dhagayso waxaan siinayaa hantidayda nuskeeda masaakiinta iyo haddii aan qof khiyaanay waan u celinayaa in ka badan 4 jibaar ma rumaysan karno cashuur qaado dib u celinaya cashuurtiisa ma suurageli karto ilaah baa maanta qoyskan badbaadiyey ninkani waa faricii nebi ibraahim wiilka aadanaha wuxuu u yimid inuu raadiyo oo hanuuniyo kuwa baadiyoobay kow sidee buu caqabad ugu yahay danaynta badan ee Sakhayos labo sidee bay qalbiga ugu turjumaa habka aan u isticmaalo lacagta saddex muxuu iga rabaa Ciise Masiix inaan iska bedelo